caqabado badan ayaa soo waajahay ardada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga wax ku barato. Caqabadahaas ka safaarad ahaan ma la socotaan maxaad se ka qabateen? laba qaybood baan u kala qaaday caqabadaha. caqabada dhalinyarada ama ardayda ee abuuraan iyo caqabada dabiici ah. Yani wadan baa timid haddaad ingiriiska timaadid af ingiriis baad wax ku baran, haddaad faransiis tagtidna af faransiis baad wax ku baran. Soomaalida qurbaha tagtayna mid walbaba wadankii uu tagay luqadiisa unbuu wax ku bartaa, qof laga cafiyey ma jira. يعني كي دنمارك تجي كي سويدن تجي كي فنلندا تجي اسكندنافيا كان لوقدا يريرون ادون كبا laga yaababa 9 milyan ka badan inay ku hadlin 5 milyan inay ku hadlin 1 milyan iyo bar qaarkood yaa haddana wax lagu bartay. Marka halkan marka la imaado cuurdaar ma noqonaysa marka luqadii baa ugu adkaatay iyo cuntadii Soomaaliyan meesha ka waayay iyo waxyaalihii 2012 iyo maaragtay 13 14 jiri jiray meesha waa ka baxeen. Soomaalida dabci waxay u leeyihiin taqallumka waxa la yiraahdo ama isla markiiba inay meelaha la qabsadaan luqadana hadda culays kuma haysa. caqabadaha marka aniga dad noogu mucuurdaara China iyo Japan hadii la tago luqadda waa la bartaa. caqabada marka waxaa jira Soomaaliya ka jira oo u baahan in waa mustawaha tacliinta ardaygii ka soo boodbooday daraasadii dugsiga hoose dhexe oo 3 fasal laga soo bootiyay secondarygana laga yaabo 2 sano inuu ku soo qaatay tacliinta iyo tayadeedana aan garanayna shahaado bug ee soo qaatay way ku adkaanaysaa inuu halkan la qabsado aad bay dib u noqonaysaa. mawduuca marka wuu iska jiraa waanan isku daynay inaan xakamayna waan isku daynay shahaado sax aan ahayn inaysan wadanka ka soo bixin waana lagu guda jiraa. caqabada waxaa jira ardayda ee abuuraan laftigooda oon aad uga wacyigelino oon kala hadalna gobolladoo kaleeta arday badan baa timid oo runtii gobolladayna u badan yihiin ardayda jaamacadaha affordable gobollay ku yaalaan Istanbul iyo Ankara kuma yaalaan. ardaydana waxaad moodaa magaalooyin waaweyn inay xiisaynayaan. waxaan ku iraahaa war markaad masterka aad raadinaysid magaalo weyn imo laakiin luqadda barashadeeda iyo muxuu ahaa bachelorka magaalooyinka yaryar baa idin fiican ku qanca oo wada haddana in badan baa isku dayda inay ka soo baxsato oo magaalada weyn ay timaado jaamacadahoodiba iyagoon fariisanoon iska diiwaan gelin ay luqadda magaalo weyn ka diiwaan geliyaan kadibna jaamacaddii ay dacwayso oo tiraha ardayga ma hayna iqaamadina si loo kasra koox baa hadda saas ku wareersan oo na wareerinaysa runtii dawladdina ay leedahay de annaga khaladka ma gelina iyagaa galay waddankooda ku laabteen mar labaad dib ha u soo laabteen visa xagga ha ka soo qaateen waana arrin adag in mar labaad tigid ay bixiyaan iyo waxyaalahaas iyo haddana aanba in la soo siin waayana waa suurtagal ganaax in la saaro. marka caqabadaas way iska jiraan ama xagga iqaamadaha ama waxyaalaha caqabada matalan haddii aan si kale u dhiga Soomaalida waa dad runtii isjecel caadifad badan isu gurmada. waxaa laga yaabaa khalad yar oo laba arday ajnabi arday Soomaaliya isku qabteen inay mushkilad ka abuuraan. marka way dhacday arrimo noocaas magaalooyin ay naga qabsadeen maaragtay حتى أرضي لقى مسافري سهولين توحل ليرها وقوانين وإسكت عن ولكن هو واحد كنورمال عم بدنين مركا عقبة لحرير أرضي ذي كان نمانكي هراء وقولي للضبط السعودي أضمال والبابا أرضي القوانين كيس ورمحل وقتي لأن نمانكي بواجي كاني نمان كان كما كفتمان أو يا ورد نمانكي هدي كان نمحط كويس تا وحق قانون لوير وقبا أنت أرد وإسكت جرجران وحيالها لكن ما أنت وحلا به كلا عقبة وين أو أرضي الصوماليات yaa jirta caqabad haysata waa minor baan dhihi karaa caqabada yaryar weeyaan dhihi karaa. marka waa caqabadii ugu weyneed waxay ahayd ardayda masterka oo jaamacadaha badanaa Soomaaliya la aqoonsan intiina waa xalinay 43 jaamacadood baa hadda la aqoonsan yahay. marka waxaan dhihi karaa jaamacadaha mainstreamka ee Soomaaliya ee muhiimka ah ardayda tayada leh ay ka soo baxaan maanta masterkooda way ka sii wadan karaan halkan. marka guud ahaan waxaan dhihi karaa caqabada way jiraan waana nolosha dabiiciga ah basaas eba يعني انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انسان كمركو ربي لا خدابه وساير واد halgamaysa halgan baa lagu jira ilaa rabbigaada aad kala kulantana halganka un baa lagu jira. marka waa halganka qayb kamid ah laakiin wax weyn oo hadda la yiraaha ardayda Soomaaliyeed bay khaas u tahay halka ma jiraan 15,000 oo arday iyo qoysas iskugu jira ay iqaamo siiyeen immigration ka Turkiga oo degan 590 baa caqabada qabsadeen oo loo diiday mushkilada ama fanni ah noqdeen. marka ama kuwan ardaydoon idin sheegahay oo kala noqdeen intiba aad loo buunbuuniyay meel walba Facebook-yada la galiyay idaacadaha aan ka maqalnaa Turkida baa qiimadaha Soomaalida u diiday. Turkida waa dad xun oo waxyaalaha yani waxay naga mutaysaninba. marka waa iska exaggeration-ka ama maartay buunbuuninta Soomaalida ay sameeyaan waxyaalo kamid ah. marka iyaga laftigooda waxay yiraahdeen professional ma ahaydeen waxaad dadka u soo bandhigaysaan 15,000 iyo 590 wax la isbarbar dhiga maaha. marka cadaaladayana laga tagin umuuman waxaan dhihi karaa caqabadaha marka waa wax laga gudbi karaa aad weyn caqabadaha Soomaalida
haysto waxaa ka badan fursadaha ay dowladda siisay aad bay risaaladaasi noo soo gaartay